waxa allaale iyo waxaasi la samaynayay paganism ama shirki inay tahay 1 January 25 December waxoo dhan waxay kiniisaddu waagi hore u arkaysay inay mas'ala shirkiya tahay oo aanay marnaba ku banaanayn diinaha laakiin sida uu dhigayo maalan encyclopedia ingiriisku sida uu sheegayo muwarriqiintu waxay isku waafaqsan yihiin buu leeyahay haba yaraatee ciise horta taariikhu dhashay inaan cidi garanaynin waa marka labaad احتفالكي كواد الله احتفال بعيد المسيح 336 meelahaas inuu bilaabmay waa marka saddexaad waxa laaliya waxa ihtifaalka la sameeyo oo dhami inay hayeen dhaqamo ay lahaayeen gaaladii hore sida geedka haduu yahay geed baa jira ay la wareegaan oo Christian tree ay ku tilmaamaan oo shamac iyo wax la sursudho geedkaasi asliyan Chinese kii hore iyo faraacinadii hore iyo waxa ay isticmaali jireen alxayaat alkhalida iyo waxbu tilmaamay oran jireen waxa ku soo biiriyay gabigiisaba geedka kan Jarmalka qarniga 14aad meelaha mise qarniga 16aad ayuu geedka kan bilaabay iyagoo marka hore waliba fikrad kale loo bilaabay qarniga 17aad baa Ingiriiska gaadhay geedkan gabigiisaba marka la sheego si kale marka inuu tilmaamno waxa laaliya waxa la wadwado ee laga soo bilaabo Saint Claus ama Baba Noel waxa Francisco yiraahdaan oo ah odaygan gadhka cad leh ee maryaha cascas qaata ee baashin barafka la dul jiida dul ordaya ee sideeda maxaa la yiraahdaa ghazal ay ka hayso ay rumaysan yihiin inuu ka soo daadego guriyaha halkan yara sare qiiqo ka baxu ka soo galaabay dhaadaan habeenkii 25 December tahay dabeetana kicadu gala midfaada halka raashinka lagu kulayliyo guriga midfaadiisu taga halkaas oo carruurta sidii la dalkhadalka Soomaalidu ay sheegtay habeenkii guda oo kale iyana guda dabeetana halkaas wax dhiga oo ay carruurtu ka qaadata iminkana dadka waaweyn baa sameeyo oo sidiisa leh oo isticmaala iyana waa aqoonta hore qadiima oo Yurubta waqooyi rumaysnaan jirtay marka la eego horta 25 December asliyan wuxuu ahaan jiray ciidii loo ciidi jiray cadceeda Yurub waqooyigeeda dadka degaa waxa waqtigaasi waa madow dabeetana ilaaha cadceeda la yiraahdo la bariyaa inay soo noqoto marka ihtifaal weyn oo loo dhigaa buu ahaan jiray in cadceedu dib soo noqoto sida uu sheegayo encyclopedia-haasi Ingiriiska ahi waxa uu tilmaamayaa markii ay wadaadadii boobabkii arkeen Romanskii oo fikradan qaatay oo ay aad ugu ballaaran tahay dhigitaankan la dhigayo xafladaha kan ay waxay isku dayeen iyaguna bal diinta inay meel ka waafajiyaan dabeetana waxay yiraahdeen maynu kaba dhigno ciise dhalashadiisii ciise lama garanada goor u dhashay afar qarni baan kiniisaddu waxa ka diidaneed waqti ku dhow qarnigii afraad bartamihiisii bay bilaabeen inay yiraahdaan Christmas Day aanu ixtiraafno oo 1 January maxaa laga dhigay markaa qola kamida kanaaysta qayb kamida waxay yiraahdaan anadana waa maalintii ciise la guday balagta laga jaray qola waxay u qaateen January 1st inay noqoto maalintii ciise balagta laga jaray qola kale waxay yiraahdeen maya dadku buu dabaaldegay oo xagee ka timi 1 January in la dabaaldego waxay yiraahdaan markii hore waxa loo dabaaldegi jiray gugiina de March buu ahaa dhexdiisa waana tii Babylonian-kii iyo Romanskii hore bay dabaaldegi jireen laakiin Romansku markay calendarkii qaldeen ay nooca kan u dhigeen ayay ka dhigeen in 1 January la dabaaldego dabeetana tii Romanskii qaldanayd baa la qaatay dabeetana waa la dabaaldegay 1 January astronomically macna ma leh oo wax qiimo ay sheegaysaa ma jirto seasonada marka la eegana waa seasonka ugu liitaba macna uu sheegaya ma jiro waa jiilaal sida ogeed wax loo dabaaldego meesha yaala ma jiraan markaan soo duuduubo masalada tani waxay ku salaysan tahay wadaadada kiniisadda waxay isku dayeen inay dabaaldegan sameeyaan waxaan uga socday waxaan oo dhami waxa weeyaan koow dabaaldegani waa dabaaldeg mushrikiin ilaaday marka koowaad waa marka labaad waa mushriga waxa ku sii raacay Kristan wadaadada Kristanka ee diintoodii markay ilaalin kari waayeen iyana dacalkay kaga dareen waa ku raaceen hadday labada kooxood isku raaceen inaga qiimuhu inoo leeyahay waa maxay asliyan waxyaabaha ay sameeyaan markay dabaaldegayaan waa waxyaabahaasi aan soo tilmaamay koow waxay yidhaahdaan nasiibka ayaa la eegaa oo waxay rumaysanayeen caadadaasi ay rumaysanayeen waxay sheegaysay
reerka oo dhan in la ururiyo dabeetana habeenkaasi la dabaaldega marka la samaynayo January bay dhahaan kowdeeda qofka kugu horeeya ku soo galaa hadduu nin dheer oo tima madow noqdo bay dhahaan nasiib wanaag bay sheegaysaa wax kale hadday ku soo galaan laakiin dib bay sheegaysaa waxay isticmaalayeen oo dhaqamadaasi ka mid ahaa in ilmo yar la qaado oo salad lagu rido kor loo qaado ilmahan yar berigii hore waxa iska lahaan jiray Asian Egyptianiski iyo Chinese ka labada kooxoodba way lahaan jireen qoladana waxay dhahaan Jesus ba u bedelo ilmaha yar inuu Jesus yahay oo isaga raha la qaado ilmihii yara waa la qaaday geedkii qolada yar lahayd waa la soo qaaday habeenkan in la soo jeedo khamri badan la cabo waa la sameeyay marka maanta la eego Christmaska iyo dabaaldegiisa iyo January kood iyo dabaaldegeeda dunida maanta dib bay ku haysaa yani waxay tilmaamaan inta waxay gubata inta khamri la cabo inta khasaare la geysto waa un ayaamo loogu talagalay in bini aadamku waasho ay hadda u egtahay أنا إسكسو كوبية وحنا لنا هون موقف كا إنه إنه كتاجنان كرام حنا قنكرة موقف كوس كعادية وحو عادية هاي وحي تهاي أولا إسلام وقت العيده وصاقه لبا وقت قرآن وكوكوه ولبدا عيده ده إسلام كوي قانه لبدا وقت العيده مناسبات بيليه ولبا ركنيور أركان تقوى وين إسلام كمذا مركا أي ضدك مسلمين تدم يستران ركن جا حجك يا ركن جا صومك هنا أي ضدك مسلمين عيد سلا يمادان ونكي حديث كصحيح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه تلمام يمركو مدينة يمي يقول الله ما الموضة عياران لبو يمي مركسوح لما هذان اليوم لبدا ما الموضة العيار يا محيي waxay dhaadeen kunna nalcab fiihima fil jaahiliya waqtigii jaahiliyada ayaanu labada tan ciyaari jirin nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi wuxuu ku yiri inna allaha qad abdalakum bihima khayran minhuma yawm al-adha wa yawm al-fitr ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu idinku bedelay labada tan laba idinka khayr badan idan nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi wuxuu tilmaamay labadan in la bedelay laba ka khayr badanna lagu bedelay labada ka khayr badan ee loogu bedelayna inay labada ciidood yihiin waa labada qura shariicada islaamiga ay sugayso wax allaale iyo waxa ciid ka soo hadha ama mawlid nabi ha lagu sheego ama rajab ha lagu sheego ama diin ha loo nisbeeyo ama gaala ha loo nisbeeyo ama cid kale ha loo nisbeeyo waa waxba kama jiraan yani ciid kale oo islaamka soo arooray oo yaqaan haba yaraatee ma jirto wuxuu ku soo koobay nabigu taasoo qura وانا تي حديث عائشة اي شيء سيدنا ابي بكر وسو غلay iyadoo laba hablood oo ansaarta kamid ay ka heesayaan oo labada hablood hadda kuwa heesa ma yahayn bay Aisha leedahay yani dul fan u baxayo heesa sida kuwa reer naqaana ma yahayn laakiin laba dumar oo ala fitratihim isaga heesaya ayay ahaayeen abi bakar baa ka xanaaqo wuxuu yiri ma mazaamirti shaytaanka baa gurigii nabiga aad la soo dooratay maalin ciideedna way ahay nabigu wuxuu ku yiri ya Abu Bakar إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا لام كانوا اختصاص شيء يبو النبي استعماله إن لكل قوم عيدا واردول والبع عيد يما لنا احتفالان بودان بيلي يبو النبي كوري وهذا عيدنا كم بانا أنك أمحي عيد يدي ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ويان أما ولكل وجهة هو موليها عيد والله سبحانه وتعالى ينصق واكا أما عيدها كالصهرة waxay yihiin intooda badan tashabuh ama ku dayasho lagu dayanayo gaalada iyo ku dayashadooda waxaanu naqaanaa in adilla badan ka soo aroortay oo reebaysa inaynu ku dayano marka uu yahay mutlaq tashabuh wala radiyay umur muayyana in laga daydana wala radiyay ciid in laga daydana wala radiyay noor karna أولاً إلهي سبحانه وتعالى القرآن كوحي نقول برين من كاسي وضضي مران إنه إلهي كبرين إننا نمرين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما لو البا إلهي وحين ويدي سنة كواس المغضوب عليهم يا ولا الضالين يهودية كريستان جد كاي مران إن أنا لكم مرين أياد مالك استوي دي سنس إذن وأدلة المامسة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
nusuus tiro badan oo qur'aan baa la soo xashriyaa ninkii balballaadhin uga baahanay iqtidaa siraat almustaqiim libnu taymiya kitaabkaasi oo dhammaantiiba ka warramaya een ciidaha iyo waxa la mid ah iyo gaalada ku dayashadooda buu kitaabka gabigiisaba sheekhu u qoray ha u raajico waxaynu naqaanaa inuu nabigu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum duul ninkii ku daydayda ee isu ekaysiiya iyaga ayuu la mid yahay buu nabigu sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayh waxa kaaga filan inuu nabigu tilmaamay la tatabicunna sunana man kana qablakum shibran bishibr wa diraacan bidiraac xataa law dakhaluu juhra dabbin latabactumuuhu xadiidkii saxiixaynka ku yaalla macruufka ee nebigu leeyahy salawaatullaahi wasalaamu calayh kuwii idinka horreeyey jidkoodii baa raaci doontaan buu nebigu leeyay taaka iyo dhudhun markaasuu nebigu wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh hadday god masalugalay galaan dabku waa masacgalay nooc ka mid oo aan teennan ahayn teennan malaa waral baa la yidhahdaa laakiin tuka yaryaroo carabtu dhankeeda u badan weeyaan waa la faamiliyu god masalugalay hadday galaan buu nebigu yidhi waa ka dabagelaysaa isweydiinta waxa ay tilmaamaysaa in taqliid acma muslimiinta uu ku dhici doono waxa uu xadiidku tilmaamayaa xataa waxaan macno samaynayn in lagaga dayan doono haddii la odhan lahaa hadday dayaxa qabtaan waa ka daba boodaysaan waxba may ahaateen oo markay dayaxa u guuraan inaynu ka daba guurayno laakiin nebigu wuxuu leeyahay hadday god masalugalay galaan waa ka dabagelaysaan god masalugalay maxaan madow iyo qurmuun ahayna uu leeyahy yani masacgalay godkeed intuu leegi maxaa qiimo uu leeyahy yani xadiidka waxa uu tilmaamayaa waxyaabaha aan macnahaba lahayn ee nolosha qiimaha ku samaynaynin ee wax bini aadam laga qaato ahayn ee caqliga saliimkii xataa aanu keenaynin in lagu raaco inaad ku raaci doonto idan Christmas day iyo jubileum iyo maxaa la yidhaahdaa kowda January waa dhaqamo asliyan shirki iyo mushrikiin ka yimi markii dambana uu kristaan qaatay foolxumadaas oo dhan isagoo wada leh haddaad adna sii daba gasho waa juxru dabkii kama gadisna waayo waa waxaan noloshaadana macno ku lahayn astaan gaaleedna ah waxay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiyo kuwan aanu raaci doonnaa alyahuuda waannasaara miya ma yahuudiya kristan baa qaala faman buu yidhi oo yaa kale aad raacaysaa waa xadiidka abi saciid alkhudri kii abi hurayrana waa kii tilmaamayey ka farisa waruum miyaabay ku yidhaahdeen faqaala waman innaasu ilaa ulaa'ik oo dadba waa ayaan kuwa ahayn buu nebigu leeyahy labada xadiidba uu ku dabaqmayaa ninka intan raaca waayo romaniskii uu nebigu ruumkanuu xadiidka ku sheegay iyo nasaaradu xadiidka hore ku sheegay labaduba maanta way isku sii raacsiisan yihiin intan dambe ah maxay 25 December-kan Christmas-ka ah iyo maalinta ka sii dambaysay January kowdeeda waxaasoo dhan markaynu isku darro waxa ay sheegayaan in mamnuucu yahay qofka muslimkii inuu waxaasi ku daydo waxa uu nebigu sii tilmaamay nimankan mukhaalafadoodu حلالي وحان منفع سبين المخالفة دودو إني من الدين بطي بل أشياء قاربوا نبي التلمامة ويركوها خلافة مثلا وحول نبي إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم محن استانوا مع استان خلافة أبو نبي ويدكم محي صبغ قاسي السماية خالف المشركين احفوا الشوارب ووفوا اللحى النبي يقول ايوا المشركين تخلافة وشهرهم تنقى بصدق قد كان لبحا والنبي يقول ايوا خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم واليهود خلافة أبو النبي يقول وهي كباهكم التكدان يدنكم كباهكم التكدان يا خفاف دين بقى كواس waxay sheegayaan ashiyaa gaar oo la tilmaamay hatta awsaf al-ibada oo salaad xagee la qabtaa soo ilaahay looma tukanayo salaada ilaahay u tukanaysa ay tooda idinka yakaanin baa ilaahay yiri hadii cibaadada la yiri ilaahay kaaga yakaanin caadaadka maxaad u malaynaysaa markaa caadaadka iyo waxaana manfaca lahayn aan khayrba ku jirin cibaadadii baa la yiri khaalifuhu oo iyay salaadaadu tooda u yakaanin adigu kaba ku tukaba lagu yiri khifaafkaaga gasho si aad iyaga u khilaafto gadhka xinaysa baa lagu yiri madaxa si aad iyaga u khilaafto waxay tilmaamaysaa oo nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi uu sheegaya inayna nimanka inayna ku dayanahay ciidahooda iyo xafladooda inayna ku dayanin nusuus badan baa laga dalishan karaa nusuusta caamka aan sheegnay waa laga dalishan karaa nusuustii tashabbuha sheegaysay waa laga dalishan karaa tafaasiirta waa laga dalishan karaa xataa mufassiriin badan oo salafka kamida
ayaa waxay ku fasireen aayadan qur'aan ah walladina la yashhaduna zur wa idha marru bil lagwi marru kirama oo sanadadu ka asaxay waxay ku tilmaamayaan ibn sirin oo kale wuxuu leeyahay wa shacaaninka waa ciid kristanku leeyahay mujaahid oo kale wuxuu ku tilmaamaya waa a'yaad al mushrikiin waa gaalada ciidahooda oo kale buu ku tilmaamaya الربيع بن أنس oo kale wuxuu leeyahay أعياد المشركين مفسرين badan oo salafka kamida ayaa waxay leeyihiin shuhuud zuur kan la sheegayaaba ee aayada quraan ay sheegaysaaba waxa ay ku fasirayaan inay tahay ciidaha gaaladu ay leeyihiin idan qofka muslimka ah maadaama uu nabigu xadiis saxiixana uu dakuleeyay war ilaahay labadooda maalmood way idin ka bedelay bal ee waxaad garan kartaa xataa booska nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiis saxiixa nin baa u yimi wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaan ku nadray meesha nawaaf la yidhaahdo inaan xoola ku qalo ayaan ku nadray markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi bawaana meesha la yidhaahdo buu yidhi inaan xoola ku qalo ayaan ku nadray nabigu wuxuu ku yidhi hal kaana fiiha watan min awthaani aljaahiliya yucbad meeshan aad leedahay xoolaan ku qalayaa miyuusan ooli jiray buu nabigu yidhi jaahiliyadii hore ay caabudi jirtay markaasuu yidhi may hal kaana fiiha ciidun min acyaadihim buu nabigu yidhi haddaama meelay ku ciidi jireen waqtiga ay ixtifaalaadka ku dhigan jireen miyay tahay markaasuu yidhi may nabigu markaasuu wuxuu ku yidhi awfi binadraka daba fainahu laa wafaa linadrin fii macsiyati illah walaa fii ma laa yamlik ibnu aadam nadarkaaga iska oofi buu nabigu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh lama oofiyo nadarkii macsi alla ku saabsiisan ama reer nebi aadam wixii aanu haysanin ku saabsiisan xadiidkani muxuu sheegayaa wuxuu nebigu saxaabiga kan u diiday istifsaar wuxuu ka weydiiyey meeshan uu ku nadaray inuu xoolaha ku qalayo inay ama ciid qolo gaaleed ay lahayd ama meel sanamooli jiray ama waxaasi inuu ka mid yahay ayuu nebigu u diidayay taasi waxay sheegaysaa markaa ciidna waa ismu jins kelimadu makaan iyo zamaanba waa lagu ictibaarin karaa سادرادد مالنتنا ولا ركرا ومال عيدات مكاننا ولا ركرا وكي نبي حديث كنت المام إلى قبر جاي كدق المحي عيد مال اللي عيدها كدق جمعنا وكي عيد كشجع زمن يا مكان وين غكرته إذا النبي صلوات الله وسلامه عليه ما دام وصحابي كان ومركو يرين نذر بان وفينا يا وسؤالها كان ويدين استفسار كان واحد لقى فهم يا روي هاي إن ودي لها هداي واحد وافقده وحي شيء سايناني وحكاني بناني ولذلك marka aynu soo koobno waxaan leenahay ummadda muslimiinta ah taariikhdoodii hore nawriij iyo ciid kristan iyo mid majuus iyo mid kale midnaba inay sameeyaan uma bannaanayn manay samayn jirin salafil ummana lagama arag bale kuwan iminka diinta lagu soo daray diinta laga dhigay ayaan ummaddii hore muslimiinta ahayd aqoonin يعني كون مولد كالنبي جاء معين كنا سجلفتي سو تاريخ ده الله هو ما همرك كوان والنبي يقولون سنين الشيء بالله هو لكن والله بيتبان الربيع الأول بهيد مسداد الربيع الأول بهيد مستقال بهيد علماء تاريخ واتقان أقواش ترى بدنا لا شيء والرأي جا وترى بدنا لا بيتبان الربيع الأول الرأي شيء جاية لكن إنه سنين ده الشيء أيها هو حق هذا الله هو على كل حال ده سجلفتي سواء نقالنا محمد بخيت المطيعي مفتي مصر hore sida uu soo naqlinayo iyo rag badan oo kalaba inay dawla al-abidiyya ama faatimiyiintii masar inay ku takallaftiisa bilaabeen faatimiyiintii masar waa kuwa ku tilmaamay ibn kathir inay ahaayeen taariikhda islaamiga dadkii ugu sharka badnaa dad ka mid inay yihiin waxaaba lagu tilmaamay koodi koowaada bilaabay inuu yahuudi ahaa reer aalubaytka sheegtay masar 280 sanadood bay ka talinayeen 14 boqor ayaa kamida baa iska dhaxlay waa wadooyinka inta istaagaan dadku u sujuudi jiro oo lagu qasbi jiray qofku markuu la soo agmaro in sujuud loo dhaco waxa uu sameeyay 6 maalmood oo la ciido say taariikhyaanadu tilmaamaan maalin caaliya maalin faatima maalin xasana maalin xuseena maalin nabiga iyo maalin boqorka meesha haysta maalmo kalena wuu lahaa laakiin 6dan waa 6dii ugu caan baxsanaa bay ahaayeen waxay sheegaan wadaad irbil joogi jiray barigi dambe ku kadsoomo masalada tan sameeyay oo ninkii koowaad ee dadka ahlu sunnah sheegtay masalada tan ku dhawaaqay baa la yiraahdaa soo xilanahay gaalada waxa qure banaan in lagaga daydaa waxa uu xanfaa waxa qure banaan in lagaga daydaa waxa uu xanfaa ee
مثلا أقوانتان علمي بني آدم كو كلا دحلي أقوانتان هرتا قال ملها يربنا ملها هو دحلكي بني آدم كو إلا آدم وسو كلا دحلي قال با waxay ku soo dartaba ama ninba inuu soo raaciyaba waa wixii reer nabi aadam soo kala dhaxlay laakiin iyana intooda in la dafira maaha in weyn bay ku dareen in weyn oo aad uga weyn inihii lahayay ayay ku dareen intay qoladan muslimkii huruday mushkiladda taagan markaa waxay tahay intii macnaha sameeynayay cid ku dayanayso la aan kaga dayanna arki maysid intii macnaha sameeynayay oo ah aqoontaas iyo wixii loo baahnaa cid kaga dayanayay cid hadal haysaatoona ma jirto intii laga reebayna waa la wada daba socdaa oo dawladda shacabka dadku kawda January waa la soo fasaxaya Christmas ka la soo hambalyeynaya ka baa la sameynaya inta diin la'aanta ana waa laga dayanaya intay diintu sheegtayna waxaad moodaa in la rabo in la baalmaro si aan laga dayan hadday tahay in Kristan ama Yahuud ama Majuus ama gaal kale waxa laga qaadan karaa waa waxa wax anfaca waa waxa si basharka ka wada dhaxeeya dhaxalkii reer nabi aadam wada leeyahay waa waxa si aqoonta waa waxa kitaab ilaahi alla dunida tan waa abuuray daraasada lagu sameeyay cilmiga xaqiiqiga taas oo waliba aynu leenahay waa in laga jafjafaa aragtiyaha badan ee aan diinta waafaqsanayn dabada lagaga sii nabay iyadoo laga jafjafayo waliba kaana aynu u baahanay inaynu qaadano ama inaynu Christmas iyo Happy New Year iyo April Fool iyo wixii la noocay inaynu ku dayanaa waa diin la'aan dadkana in loogu yeedho maaha dawladaha muslimka ku aftirsada ama sheegtaana ma yahayn inay fasaxaan dad muslima iyo fasax laga dhigta iyo in wax u dhowtoona laga dhigo iyo in la weyneeyo midna ma ahaateen idan inagoo dood badan ba laga yaabay inaynu ka wadano kuwii diinta loo nisbeynayay kuwaan diinba loo nisbeynay diin gaaleed loo nisbeynay bal gaaladii kristanka ay isku sii waafaqsan tahay diinta wataniyada inay ka timid inaynu tii wataniyada ka timid u dabaal degnaa waa waxa aad u liitaa